asalaamu calaykum kusoo dhowow dadaal academy casharadeenii wada sheekeysiga ahaa weeyaan maantana waxaan qaadan doonaa cashar waabsiya horifying conversation wada sheekeysi waabsi ah waana casharkii 14aad a iyo b ayaan u kala qaadnay a ayaa yidhi why do you always maxaad badanaa tumble with fear aad la jaraysaa ama la cabsataa whenever mar kastoo you stand aad taagan tahay ahead of other people dadka kale hortooda mar kastoo aad taagan tahay maxaad la gariirtaa buu yidhi ninkaas wuu bootooynayaa b don't speak to me ha ila hadlin buu yidhi as a damsel boy sidii wiil yar oo dhoocil ah talk about ila hadal talk about ka hadal buu yidhi talk about ka hadal your purpose ulajeedadaada to stand aad u taagan tahay in front of me hortayda ayaa hadalkii qaatay waxaanu yidhi I always searching waan ku raadinayay for you adiga as a needle sidii irbad in the sea badda ku dhacday oo kale but today laakiin maanta you are in my hand gacanteeda ayaad ku jirtaa so saadaraaddeed don't try hasku dayin to escape inaad ka baxsatid from me aniga inaad iga baxsatid hasku dayin otherwise haddii kale you will collect your little ponies lafahaaga yaryar ayaad urursan doontaa oo waxaad ku urursan doontaa into plastic by bac khafiifa ayaad ku urursan doontaa bal siduu ugu hanjabay eeg otherwise haddii kale you will collect waxaad ku urursan doontaa your little ponies lafahaaga yaryar into plastic by bac yaroo khafiifa ayaad ku urursan doontaa b don't you see miyaanad arkayn buu yidhi my muscles murqahayga and just iyo xabadkayga when you are bluffing markii aad ii bootaynaysid when you are bluffing me marka aad ii bootaynaysid please stop ballan jooji buu yidhi tantalizing words ereyadaadan daandaansiga ah otherwise haddii kale you will regret waad ka qoomamayn doontaa and look before you leave waxaana la yidhi intaanad falin ka fiirso I only see waxaan arkaayo keliyuu yidhi think legs luga yaro dhuudhuuban and big ball iyo bidaar weyn soo saa daraaddeed do you want to me ma waxaad rabtaa make you cry inaad ka hor ooydid in front of the people dadku hortooda please fadlan put your feet on the ground cagahaaga dhulka caga dhigo otherwise haddii kale I will teach you waxaan ku bari doonaa unforgettable lesson cashar lama ilaawaana let the birds not hear you shimbiruhu iyanay ku maqlin buu yidhi fantastic cajiib today maanta you are speaking as waxaad u hadlaysaa sidoo kale you are speaking as waxaad u hadlaysaa as someone sidii qof who knows everything wax walba garanayaad u hadlaysaa qof maanta waxaad u hadlaysaa sidii qof wax walba yaqaanaad u hadlaysaa really run ahaantii you are in daydreaming maalin baad riyoonaysaa don't you know miyaanad ogeyn that I learned inaad bartay this language luqadan before were born markii aad dhalatay ka hor inaan bartay miyaanad ogeyn I can speak inaan ugu hadli karo as a native speaker sida dadka u dhashay oo kale inaan ugu hadli karo miyaanad ogeyn no one can bear cidna ma dhegaysan kartuu yidhi no one can bear you cidna kuma dhegaysan kartuu ku yidhi broken English ingiriisiganka jajabka ah so sidaa daraaddeed don't pretend haska dhigin what you are not waxaanad ahayn ha iska dhigin
casharkani haddii uu ku qanciyey fadlan sii gaarsi ardayda kale